بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا وحمد سن إلهي سبحانه وتعالى ونصور تجلي إنا ما أنت ماشي عن باقنا بدأت كسر جدينا مركل لبعض وحن باقنا بدأت هل كان وجود دراية إيش بيلا هو الدجا يكون الدجا لما يجي قلبت كمجالات كسمايو أنا جوا حقيقة أورك ولدية أما ورعادك أهنا قدوميها دليرة باشا عورملة قبل كهيران ماشي عاد فرنت أقدرين ومجالات بلدوينة حارونت قبل كهيران أنت أسكدي بيلاها كنت قال من مجالات كسمايو قلبت كمجالات كسمايو سيد الدجانا ده إيش كوياما يقندلا يفومو وحنا لنا هاي مسكحة هالشقيسو ضد كاس وضد وضد الشيء وضد ولا لا marka loo fiiriyo waliba beelahaas beesha coormale iyo beesha harti koofureed oo ku dagaalka baan uu ka dhaxeeyo hadda markii loo fiiriyo deegaanada Jubbaland beelaha dego beela ayaga isaga dhow ma jiraan waa markii xagga dhalashada iyo xagga deegaanka loo fiiriyo Soomaalinimo iyo Islaamnimo warkeeda wadaaf waxaan codsanaynaa in dagaalkaas la joojiyo waxaan leenahay intii ku dhimatay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun intii ku dhimatay Allah u naxariisto inta dhaawacantayna waxaan Ilaahay ugu baryaynaa inuu Ilaahay si dhaqso u bogsiyo intaas kadib dadkaas waa dad walaalo ah waa dad muddo soo wada deganaay colaadaasna colaad hadda soo laabatay waa bilooyinkii dambe aaday u soo noqotay xalal badan waa la isku dayay sidii la sheegayo annagana aan ka warqabno laakiin wax suurtagal ma aha waxaan leenahay aqliga ha shaqeeyo odayaashii iyo indheergaradkii iyo culimadii meesha joogtay oo waligood samaha ka talinaysa waa joogtaa marjiciya loo noqdo sidii wax ku soconayaan wax lagu socodsiiyo inteeda kala waxaan leeyahay beesha harti koofureed waa inay isdejisaa deegaankaas waa la wada leeyahay muddo la wada lahaa waana la wada lahaan doonaa cid sikin karta ma leh dadkan إيشة ضد لسكين كرمها هاي رادين أما هبض نادينا ووحلا سكين كرمجرا مانت سومالي أما دون كودم سببته قف إلهي مال وكباري أو دقن إنا أو أتراهو إيشة ماشى أنا سودجي أنا واجي خرا جفا أنا يقدر سنة حياة وحيالنا عاس إيشة باش إني أو مسكحة الجلسو أو ضد كده عيسو si ay deegaano horle iyo dhulka ay isku ballaariso dhulkaas dadkaas deegaan ku yihiin waligood ay soo deganayeen sidii taariikhda aan ku wada hayno meeshaas waa la wada deganay dadkii deegaankii loogu wada imaaday ka mid yihiin hadda waliba hadda markii oo aan ka sii hadalno qaabkii Kismaayo ay u degan yihiin eelboorka Kismaayo hadda meesha ku yaalo eelboorka Kismaayo meesha ku yaalo dawladda Soomaaliya waagi ay ka dhigaysay eelboorka meeshaas waxa xogta ku haynaa in nin ormale uu geeliyay meesha deganaa oo baxar geel ay ahayd oo dawladda Soomaaliya ay u imaatay ay tiri uniyo maadaama meesha magaalo weyn ay noqotay oo magaalada eelboor ay ka maarmin eelboora meesha aan ka dhiganayna geela xaq u siki noo banay sidaas awoodeed oo eelboor looga dhigay marka maanta ninkii magaaladii oo meeshaas la bilaabay eelboorkeeda la bilaabay geel uu deganay oo dawladda Soomaaliya heshiis ay la gashay dadkaas waa jooga hadda wiilkiisa joogo saan warka ku hayo ina la dhamaanta annaka keentay jifiyada annaka naga mid ahay waxyaalo noocaas waxyaalaha colaad si horinaya ka mid tahay ka urur dhalinyaro ahaan ka dhalinyaro ahaan waxaan leenahay arintaas ma soconayso إيش وح أو هذا مسكحة بنادم لقيش قيسين كرا نماهن وحاطسنينا دجال كسينا بدين لود جوجي أو شروط الآن ده ماشي كوباباي ده كاسنا وحالك يلي دونا سيدي أو شريعة الإسلام كأوجشاي إن لو حليو وحيد به أو ماشي كجرو وحنا هاي باش هرتي دبك ما وضع سيدي عن كور قبله باش مجرتين خاصة دبك أوبا وحا وضع مجرتين وايو مجرتين ودول كوفيلن إلهي واكسي دad كان ديغان وايا ووضع دقنان جيرين
adigna geesaa ka deganeed geeskaadii ha ku anfaco walaaltinimo iyo deris wanaagtii dadka ha ku wada joogeen dadkan weligood waa wada deganaan doonaan intaasaan leeyahay beesha harti beesha Coormalena waxaan leeyahay aqliga ha shaqeeyo ayagana dagaalka ha joojiyeen maxaa yeelay adigana haddaad tiraahdo meeshaan nimanka ana ugu soo horeeyay ana saan ay ana nin kasta ana balaayay hadduu dhaa meesha waxa ka imaanaya dagaalkaas na qasaara imaanaya oo naf iyo maal intaba leh oo hadda waxa dhacayba ay ka mid yihiin waxaan codsanaynaa ka urur dhalinyaro ahaan ii sheeg anoo ku hadlaya magaca ururka daryeelka war adag ama waladeeya iyo gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee beesha Coormale ee gobolka Hiiraan waxaan codsanaynaa dagaalkaas in la joojiyo oo wixii dhacayna laga heshiiyo si ay u soo noqnoqonin mar kalena ay u soo noqonin waxaan codsanaynaa in oo sheeg oo si arrin oo sidii Soomaalidu waxay ku maamaadaa xaaje sidii oo futaari aan loo fafeedin ma falanto xaajada in la isugu imaado xaajada meesha ay sarta ka qorantay la toosiyo xaajada si waadax ah loo galo waliba inaysan gelin wada hadalka dad yar oo ii sheeg oo dhinac loo xaglinayo inaysan gelin si ii sheeg dadka deegaanka oo dhan ay wada galaan dadka oo beel kasta dad oo aqoon yahan leh oo deegaanka ka soo jeeday leedahay laakiin garta haduu galo nin ka yimaaday bari iyo qandala ka yimaaday haduu garti galo xalkeeda waa dheeraanaya haddii xal hadda oo la sameeyana xal micno badan sameynaya male oo caga badan ku taagnay male waxaan leeyahay dadka nabadeynta geli doona dad oo sharfan oo taariikhda ee taqaano oo dadka yaqaanaan qabiilada deegaanka ay yaqaanaan reer deegaanka waa inay arinta galaan sidaas lagu dhameeyo intaas kadib ii sheeg waxaan leenahay maamulka Axmed Madoobe si warka anagu soo gaaray dhinaca u xagliyay dhinaca hal wasiirka arrimaha gudaha dhinaca u xagliyay baasha ha ka daayo meeshii asaa dawlad u meeshii dadka hadda meesha lagu xasuuqo waa dad rayid oo xoolo dhaqate waa aragnay sawiraanta la soo qaaday waa aragnay waa dad ii sheeg xoolo dhaqate waa dad xataa reer magaalo kuma jirin marka waxaan leenahay aqliga ha shaqeeyo meeshii asaa dawladka dadkii deegaanka ha kala badbaadiyo wax weyn ma aha haddii ii sheeg ciidan uu qaado tuulada la isku hayo uu ciidan dejiyo cid isweeraraysa male intaas bis ugu filan intaasaan leeyahay dawladda federaalka Soomaaliyana waxaan leeyahay dadkaas dadka dhaawacayna inay oo gurma degdeg u fiiso wixii dibka ka bilowday inay xaliso ayada dalkii dawladka intaasaan leeyahay ayadana mideeda kale waxaan kaloo ina ka hadlaan rabaa dhawaanahan Soomaalida waa ku soo noqotay qaabka oo beelaha in la soo dagaalo hadeertan waxa dagaal uu ka socdaa meesha la yiraahdo Walweyn beelaha Walweyn ku dagaalamay ay kan dagaalka joojiyeen anoo ay sheeg urur siyaasadeed aan ku hadlaynin oo urur dhalinyaranimo ahaan ku hadlaayo dhalinyaradii mustaqbalkii dalka nahay dagaalkii Walweyn ka dhacay iyo kii oo bari ka dhacay iyo kii galbeed ka dhacay anaka waana wada saameynaya dan noogu ma jirto dan dhalinyaranahay dagaal waa ka soo dalnay reer Walweyn waxaan leeyahay dagaalkaas ha joojiyana mustaqbalkoodii iyo wanaagooda ha fiiriyana beelaha meesha ku dagaalamayana ha joojiyaan dad oo war xanaf leh media iyo waraha bulshada waxyaalo noocaas mariya jira dadkaasna waxaan leenahay Ilaahay ka cabsada joojiyo warkaas mideeda kale hadana deegaanka Diinsoor sidoo kale ayaan dhaxdaas shaqaaqa ka dhacday wax tuhun dad lagu laayay sheegay oo hadana waliba sawiradoodii iyo dadkii aan la hadalnay ay noo sheegeen in dadkii ilaa 10 qof dad ku dhow oo 8 ilaa 7 meelahaas hal mar la dilay hal meel lagu dilay oo aana qabiil loo dilay ayadana oo hadana ay arinta xun tahay ayadana si nabad in lagu dhameeyo codsanayna ii sheeg intaas kadib waxaan leenahay Soomaaliya oo dhan war dagaal nama deeqo nabadana deeqdo nabad aan ka wada shaqeyno hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan waa laga bixi doonaa laakiin aan la isku xumaanin aan waxaan leeyahay ii sheeg culimada Soomaaliya dagaaladan ka hadasho oo sidii ay ugu qayb qaadan lahaayeen si lagu joojin lahaa ka hadleena waxaan kaloo leeyahay meeshaan aan baaq ugu dirayaa culimada beesha oo Coormale culimadeeda waa inay arintaas wax ka qabtaan oo arin si dhab ah u galaan aysan ku fiirsanin odayaal yar oo ii sheeg oo beeldaaji waxyaalo noocaas
arrinta ay isku fiirsanin arrinta si oo dadka culimada markay oo qolofta geed marka ugu dambayso geedka awal caleenta ka dadaad marka dambe qoloftii dhacaysa qoloftii waaye culimada qoloftii haday dhacdo ay aamusto geedka meesha ku haraya marka waxaan codsanayaa culimada Soomaaliyeed gaar ahaan culimada beesha Ormale inay arrintan ka hadlaan gartana galaan ee sheeg nabadana ka shaqeeyaan intaas kadib waxaan leeyahay dhalinyarada beesha Ormale ee sheeg waa ayaantan waa kala daadsan yihiin oo qalaafaad iyo waxba ka jiro qalaafaadkaasna waxaan leenahay in oo si nabad iyo si oo hoose loo xaliyo aan rajaynayaa israacaan marka shirkeena intaas uu ku eg yahay waxaan leenahay Soomaaliya nabadaan u rajaynaynaa guul iyo barwaaqo aan u rajaynaynaa aarana u rajaynaynaa insha Allah taala waa la khayri doonaa beelahaas beesha Harti Koonfureed iyo beesha Ormale dibka hadaayana deegaankaas cid oo ii sheeg wada ka tagaysa malaha nin kasta meeshuu joogaya meeshii waa looga imaaday waa joogi jiray waa joogaya waxaan codsanaynaa wax kasto dhacay oo dib in lagu dhameeyo qaab ay uga shariicada islaamka waxa kale oo codsanaynaa deegaankaas waa la wada leeyahay waa in la wada deganaadaa si nabad in lagu wada deganaadaa insha Allah taala warkeen intaas uu daaran yahay intaas inaan la wadaagno aan rabnaa beelaha walaalaheena waxaan rajaynayaa inay ii sheeg wanaag qaadan doonaan wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh